biyalaanta iyo cayayaanku waa dhibaatooyinka ugu waaweyn ee waqtigan haysta beeralayda dalka. sanadku waxa dhacday in beerihii dalagii faraha badnaa ay ka soo go'i jireen soo go'in. haddaad eegtaan 2007 ilaa 2017 warbixintii la soo saaray waxay yani wadanka sida uu isu bedelay wax soo saarkii xilligaas sidoo haruntii marka maanta wax soo saarkii 21% in ka badan ayuu wuxuu ka hooseeyaa berigii hore marka loo eego xanuunada iyo cayayaanada iyo dhibaatooyinka iyo roob la'aanta iyo biyo la'aanta wadanka ka dhacday. dadaal iyo tacab badan kadib shirkadda horumarinta wax soo saarka beeraha ee Abqaal waxay ku guuleysatay xal u helidda dhibaatooyinka beeralayda ka haysata dhanka wax soo saarka. imkaan waxaan aduga heeganahay sidii loola tacaali lahaa xanuunadan iyo dhibkan jira in wax looga qaban lahaa insectskan beeri soo weeraraya walow aanay wadankeena jirin tusaale ahaan xanuun kasta specific treatment-kiisa aan loo helin cayayaanka ama xanuunka dawadii ku haboonayd inaan wadanka laga helay laakiin inta badan waan la tacaalaa waxaan dawooyinka loogu talagalay baan u diraa waxaan kula sameeynaa organic baan u sameeynaa qaar oo waxa weeyaan laga sameeyo spaceka iyo toonta iyo dacarta waxyaalahaas inta la isku mid kasta doos bay leedahay la miisaamo la isku daro la isku khameeriyo ayaa sometimes loo isticmaalaa cayayaanada iyo xanuunada lagu buufiyo. sidoo kale shirkadani waxay ku guuleysatay inay markii ugu horeysay dalka ka hirgeliso hab casri oo lagu horumarinayo wax soo saarka beeraha dalka. runtii beertan aynu maanta joognaa beeraha ugu waaweyn aan ka shaqeynay mashaariicdeedii horumarinta beeraha Soomaaliland ka hirgelinay dhibaatada ugu weyn ee beertan haysata beeralayda markaad eegto kow waxa weeyaan waa biyo la'aan horta number 1 marka si aan looga gudbo biyo la'aantii faraha badnayd maadaama beertan inta leeg tahay waxa soo cambeeya wadarkiisa intuu la leeyahay dakhligii faraha badnayd soo saari jirtay waxa hoos u dhigay biyo la'aan marka challenges wuxuu ahaa bal beertan sidii loogu heli lahaa biyo ku filan beertu ma laha ceel waxay lahayd barkadiina xilliga kan gaabi bay galeen marka biyo baa yaraaday saawgeed waxaan sameeynaa analysis ah in calaashkeed inta uu baahan yahay maalintii la xisaabiyo beeriyaar inta la xisaabiyo kadibna biyo loo harvest gareeyo loo qabto isla markaan in habkan casriga ee modern irrigation systemka drip irrigation kan loo sameeyo sida ugu challenges-ki haystay waan xalinay waxaan u sameynay nidaamkan aad arkaysaan ee ah drip irrigation installation-ka oo ah geedweynta haddaad ku taqaaneen in khudaarta loo sameeyo drip irrigation maanta waxa weeyaan geedweynta wax loo sameeyo drip irrigation runtii marka drip irrigation loo sameeyo systemka loo sameeyo kow geedka wuxuu helayaa biyo ku filan buu helayaa laba cayayaanadii buu ka badbaadaya saddex wax soo saarkiisii uu saayiday marka dadka waxaan leenahay runtii nidaamkii hore traditional farmkii hore bedela nidaamkan cusub ee aad arkaysaan halala jaan qaado waa nidaam runtii wax weyn dalka bedelaya wax badan beeralayda ku soo kordhinaya wax soo saarkoodan kor u qaadayo.